magaalada Laascaanood oo waayadan xudun u noqotay diriir colaadeed oo xooggan ayaa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay aysan ka dhicin wax dagaal ah. haddaba maxaa keenay inuu istaago dagaalka Laascaanood iyadoo ay duleedka Laascaanood ku wada sugan yihiin ciidanka Somaliland iyo ciidamada Puntland iyo maleeshiya tiro badan oo in ka badan 20 maalmood kula dagaalamayay ciidanka Somaliland daafaha Laascaanood. sidaad la socotaan magaalada Laascaanood waxaa ku sugan saraakiil sare oo xilal waaweyn ka soo qabtay dawladda Soomaaliya, sidoo kalena koorsooyin military ku soo qaatay dalalka Mareykanka iyo Ruushka, haystana khibrad sare oo ciidan. jeneraaladan oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa Laascaanood ayaa la isku raacay in loo daayo hogaaminta iyo dagaalgelinta ciidanka SSC iyo kuwa Puntland oo isgarabsanaya. waxaana saddexdii maalmood ee la soo dhaafay magaalada Laascaanood gudaha u galay kumanaan ka tirsan ciidanka Puntland, kuwaas oo u abaabulan hab qabaa'il iyadoo ciidamadan loo sheegay inay ka amar qaataan General Xijaar iyo General Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo General Asad Diyaano iyo General Morgan oo hadda ku wada sugan gudaha magaalada Laascaanood. sidoo kale waxaa jira warar sheegaya inay khuburadan ciidan ee ku sugan Laascaanood ay dejinayaan shax dagaal, waxaana arinta loo qaybiyay laba dhinac oo kala ah: kow, in 3 jiho dagaal looga furo ciidanka Somaliland; labo, in hal mar weerar culus lagu qaado fariisimaha ciidanka Somaliland. labadan qodob ayaana ah targetka koowaad ee saraakiisha hogaaminaysa ciidanka Puntland iyo SSC, waxaana ay maalmahan ku jireen diyaar garow ciidan oo xooggan, taasi oo ka dhigan inay qorsheynayaan inay qaadaan duulaan culus oo ballaaran. waana midda keentay inay 3 maalmood wax dagaal ah ka dhicin Laascaanood oo uu socdo diyaar garow ciidan. dhinaca kalena ciidanka militariga Somaliland oo wali ku sugan aagagoodii Gooja Cadde iyo duleedka Laascaanood ayaa laga soo sheegayaa diyaar garow ciidan iyo inaan si fudud lagu jirin difaacyadooda, iyadoo ay Somaliland caalamka u sheegtay inay ciidanka Puntland ku soo duuleen ciidamada Somaliland. haddana ay qorsheynayaan ciidanka Puntland inay weerar dhowr jiho ah ku soo qaadaan ciidanka Somaliland. waxaana muuqata inay labada dhinac isku diyaarinayaan weeraro culus oo ka dhaca magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, iyadoo uu waji kala yeeshay dagaalka Laascaanood. dhinaca kalena Somaliland oo bilowgii dagaalka lagu eedeynayay inay la dagaalamayso shacabka Laascaanood ayaa hadda heshay fursad weyn oo ay caalamka taageero uga heli karto ciidanka Somaliland ay ku qaadi karaan dagaal, kadib markii ay caalamka iyo cid walba u cadaatay inay Laascaanood ka dagaalamayaan saraakiil ciidan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya, kuwaas oo xilal sare ka soo qabtay dawladda federaalka Soomaaliya, haystana darajooyin sare oo ciidan. waana mid keenaysa in cadaadiska laga yareeyo Somaliland mar haddii ay dagaalkan ka socda Laascaanood ka qayb qaadanayaan saraakiil ciidan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya. dhinaca kalena dawladda federaalka Soomaaliya oo markii hore taageertay waxgaradka gobolka Sool ayaa ku khasban inay hoos isaga dhigto xiisadda Laascaanood maadaama ay ku lug yeesheen dhinacyo kala duwan. sidoo kale dawladda Soomaaliya waxaa looga fadhiyaa inay cadayso mowqifkeeda ku aadan generaalada ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ee ka dagaalamaya Laascaanood, kuwaas oo u baahan in lagu sameeyo darajo ka xayuubin maadaama ay ka qayb qaateen dagaal aysan u dirsan dawladda Soomaaliya. daawade aragtidaada nala wadaag muuqaalkanna u sheer garay asxaabtaada.